deeqdan aan soo gaarsiinay maanta xabsiga dhexe waxa ay ka kooban tahay raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariis 100 loor sokor 100 loor bur 100 loor saliid 1 litir saliidda wax lagu kariyo caleenta shaaha 5 jawaan waaye cabitaanka foosarka waa 5 kartoon timir waa 2400 oo kiilo geel waa 5 neef oo geel ah dharka ciidda waa idan maxaabiis aan ugu tala galnay waa 1170 way ku jirto 13 dhar oo aydan loogu tala galay dumarka bulshada Soomaaliyeed sida ay u taageeraan daruufaha kala duwan wadanka ku heesta aad ay ugu mahadsan yihiin Hormuud iyo Bahda Salaam iyo Taaj iyo Hormuud intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin sida waxa aad ka qaadin dadka ugu soo celisiin aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada waa idin soo dhawaynaynaa waana idin mahad celinaynaa la shukrak cala waajib adinka hore u yiri laakiin annaga waa idin mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waa idin mahad celinaynaa raashinkaas qaybihiisa kala duwan oo bariis kale bur kale sokor kale saliid kale dhar kale timir kale sidii geela leh sidii aad ugu tala gasheen oo ummadan ugu keenteen ayaa la marinayaa waa ku kalsoonaanaysaan ilaahay idanka inayna meel kala marin taasuna waa ku kalsoonaanaysaan waxaan joognaa isbitaalka Martiini oo deegaan u ah kuna ahaan jirtay muddo dheer naafada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan soo gaarsiinay maanta kaalmo aan u tala galnay bisha barakeysan ee Ramadaan taasoo qayb ka ah kaalmadii aan soo gaarsiin jirnay bil kasta oo Ramadaan iyo markaas oo ay duruuf adag ay ka jirto waan helnay Hormuud sanad walba ama mar kasta oo aan xoogaa arrinteenu ay meel dhexe tahay way noo soo gurmataa sanad kasta oo soona waa noo soo gurmataa ilaa 15 sano arrintaas way nagu wadeen